amare waxay ku soo saareen shal markaan ka soo baxay kabacdi markaan isbitaal ka soo baxay kabacdi waxay dhaheen dhulka yarka ahaa uma soo geli karto hooyadiis uma imaan karto naaska masiin sida daawada muuqaalka hordhehaysa ka soo aragtay waa hooyo Safiyo oo sheegayso in caruurteeda lagala wareegay oo dalkaasi Mareykanka maadaama mar hore caruurteeda lagala wareegay oo loo diiday in ay caano nuujiso ama naaskeeda ay nuujin karin oo dawladda Mareykanka ay u diiday. si aan kula wadaaga fadlan nagu soo biiro asxaabteena ka mid noqo adigoo janaalka subscribe dhahanayo gambaleelkana u furanayo muuqaalkana like la dhaca wixii fikir aad ka qabtidna qaybta commentiga noola wadaag. hooyo Safiyo oo baraha bulshada ka soo hadashay oo muuqaalkeeda saacadooyin yar oo kooban ayadoo ooynayso markay baraha bulshada ka soo dhex hadashay oo sheegtay in dawladdaasi Mareykanka ay u diiday ciyaalkeeda in aysan nuuji karin oo haddaba toos loola xil wareegay ciyaalkan mas'uuliyadiisa in aysan qaadi karin ubadkeedna hadda toos loola xil wareegay ayadoo oonaysay baraha bulshada muuqaalkeeda saacadooyin yar uu qabsaday maadaama hooyo masaakiin ah oo Soomaaliyeed oo dhibaataysan ay tahay dhulka gaaladana hadda ay kala wareegeen ciyaalkina ee hadda toos u la wareegeen ayadoo gaari wado oo aad iskaaga ooynaysa ay muuqaal baraha bulshada dhankaasi live ay soo gashay dad badan oo asxaabta kamid ay aad ula murugoodeen maadaama hooyo wax dhalay ay tahay beer wax dhalay oo ubadkeedna ay ka maarmi karin ubadkeedu u baahan hadda lagala xil wareegay dawladdaasi Mareykankana amar degdeg ay ku soo saartay amarkaasi oo loo soo sheegay ama ayada loogu sheegay in ciyaalka dib dambaba aysan u arki doonin ciyaalkana mas'uuliyadooda iyo waxooda iyo ayagoo idilbo in ay balan qaadi dawladda Mareykanka in ay sidaas loola wareegay hooyo Safiyo ubadkeedna aysan dib dambe u arki doonin ubadkeeda oo hooyo Safiyo aad ay ugu murugootay hooyo Safiyo oo hadashay oo sheegtay ubadkeeda in uu aad u yar yahay xilli lala xil wareego ama wareegitaanba aysan wax ka ogeyn maadaama ubad yar oo cunug yar uu hadda yahay uuna u baahan yahay caanaheyga inaa siiyo laakiin hadda oo dawladda Mareykanka ay tiri ubadka waa xaniirin weysay ama waa si fiican ayaa u xanaaneyn weysay xanaaneynteeda iyo mas'uuliyadda ubadkana hadda hooyo Safiyo lala wareegay dawladda Mareykanka ee sidaas ugu wareegtay ayadoo iska ooynaysa muuqaalkeeda uu baraha bulshada qabsaday maadaama ubadkeeda wax u soo dhiciyana ay waysay haddana saas ay ubadkeedana ku waysay ayadana aysan jeclaysanin in ubadkeeda laga wato ay jeceshahay ay baraha bulshadana ay ka dhex cadeynayso maadaama hadda ubadkeeda sidaas ay ku waysay muuqaalkeeda ayaan kula wadaagi doonaa daawade wixii fikir aad ka qabtid qaybta commentiga noola wadaag soo dhawow daawade amare waxay ku soo saareen shal markaan ka soo baxay kabacdi markaan isbitaal ka soo baxay kabacdi waxay dhaheen dhulka yarka ahaa uma soo geli karto hooyadiis uma imaan karto naaska masiin